marka af Soomaaligi waa ka gamaaraya macnaheedu uu sii naaqusmaya. afka Soomaaligu wuxuu hadda ku sugan yahay wax la wada og yahay waa luqad caadi ah oo kuwa adduunka ka mid ah ilaa 20 milyan baa lagu qadaraa iyo 25 milyan inta u dhaxaysa dadka af Soomaaliga ku hadla. afkii waa lagu dhaqmaa, waa lagu hadlaa, dadkiisu wuu dhashaa, wuu jiraa, laakiin afka iyo farta baa wax kala gooniya ah. afku haddii aanu aqoon lagu barto helin, cid barata oo aqoon ahaan u barata, ma kobco, waxa la yiraahdo development, macnaheedu ma qaato. afkii ku sugan yahay waayadatan dadkiisii dhoofay ee dibadda u kacay inay u tageen luqooyin kale oo ay ka doorbidayaan oo ka xoog badan marka ay noqoto baahida ay u qabaan. marka af Soomaaligi waa ka gamaaraya, macnaheedu uu sii naaqusmaya oo dab gamaaray oo kale. ma garan goor dambe maahe muhiimadda in ay afkii hooyo dibadda ku haystaan inay tahay. marka waa xaalad kale oo meelaha uu ka sii dumayo oo laga naxo uu ku sugan yahay dadka dibadaha jooga. wuxuu ku sugan yahay marka taasu luqooyinka kale marka ay isa saameeyaan in dadka oraahdii ay ugu hadlay erey bixintii af Soomaaliga, samayska weedhiisa sida ay u dhisan tahay, iyo xitaa ku dhawaaqii xuruufta saxa ah ee af Soomaaliga oo mid walba aan tusaalayaal iyo macno badan ka samayn karo. waa xilligii loo baahnaa santar dhexe oo afka loogu eerto oo laga doono oo wixii la iskaga qabto kuwa kale isku xidha. ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor? ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada? fadlan taageer Dalsoor. waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii. deeqdaada sidan aad u bixin kartaa.